tiirka iyo udub-dhaxaadka bulsho weliba waxaa astaan u ah golo dhaqan oo midnimo u horseeda mujtamaca waana tan dhalisay in golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee ku nool South Africa golo ay ku midaysan yihiin lagu dhawaaqo islamarkaana la caleemo saaro xaflad weyn oo xalay ruuxday magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika oo dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo xaadir ku wada ahaayeen ayaa waxaa lagu caleemo saaray guddoonka guddiga golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha hawiye ee South Africa iyadoo mudane Daahir Maxamed Cali oo loo yaqaano Daqare loo doortay guddoomiyaha guud ee golaha halka guddoomiye ku-xigeenkana loo magacaabay loona caleemo saaray mudane Nabadoon Abuukar Faragaab halka xogayaha guud ee golahana uu noqonayo mudane Khaliif Cilmi Hurre higsiga waa in la helo jaaliyad guud oo loo dhan yahay oo ay Soomaalida Koonfur Afrika ku wada midowdo ayuu hadafkooda iyo halkudhigooda u badnaa khudbadihii halkaasi laga jeediyey mahad alla kadib martida sharafta oo ka soo qayb qaadatay idinkiisoo kale waa mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah oo ognahay dad shaqay yihiin oo weliba lagu jiro oo December lagu jiro ayaa noo soo hubiyay waqtigiina qaaliga ah siisiin marka saantaas soo qaatay midda Allah ka dhigo midda sii qaadayay midda Allah ka dhigo haddii aanu gudbo waxaan leeyahay waxa meesha loo joogo sharaxaad oo baahan oo boorka ay ku qoran tahay kaliya rabo waxa inaan ku daro muhiimadu ma ahay saddexda oday oo meesha ku sawiran kaliya oo waa qayb ka mid ah bulshada ku nooleed South Africa oo ay sooratay waxaan u baahanahay oo higsigeedu uu yahay waa inaan gaarno Soomaalida South Africa ku nool oo hal oday dhaqan oo ay ku midaysan yihiin la ujeedkeedu waa intaas maasajka aan gudbinayo anoo ku hadlayo guddiga qabanqaabada waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala sanadka cusub intaa la gaaray inay noodin gasho oday aan ku midaysannahay oo jaaliyaddu ku midaysan tahay in aan dooranno waxaan ogtihiin walaalayaalow kali uma noolaan karno waxaan wadajir u weynana kala tag mayno waa cudur ilaahay naga badbaadisho marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa khiyaarta meesha joogto inay maasajka qaado qaab walba oo Soomaalida iyadoo hal kamida ayaa haddana qaabkii aan u qalinay aan u joognaa caawo khiyaartii magaalada oo dhan ayaa joogta ayagoo nabacad badan naga aqoon badan naga fikir badan ay joogaan marka maasajkan gudbinayna waxa waaye haddii aan nahay beesha caawa caleemasaarka qabta waxaan u diyaarsannahay inaan Soomaali wax la dhisano oo aan dhisno oo la dhabar u noqono badan ee caleemasaarka walaha dhaqanka iyo midnimada beelweynta hawiye insha allahu tacaala waxaan rajeyn doonaa kulanka ku xiga midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed la gaari doono marka haddii badan hoos laga soo dhisay maanta meesha u socoto wax weyn oo farxa waaye Soomaaliyu midnimadeeda wadajirkeeda wax ku tahay qof keligeed waxa uma jirta laakiin wadajir wax loo gaari doonaa intaas kulley insha allahu tacaala hawshan mawduuceeda iyo waxay soo martay iyo ahmiyeeda was Cabdicasiis oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada ka hadli doona aniga waxaa la istaajiyey inaan insha allahu tacaala mahad celiyo ummadda Soomaaliyeed iyo qiimaha badan leh dhaqanka iyo marti sharafka culamaa diinka gargaarka ganacsatada sidaad u soo ajiibteen hawshaan aad iyo aad u mahadsantihiin waan kaga mahad celinaynaa walaalayaal waqtigiina midnimada soo hurteen waa ku mahadsantihiin aad baan ugu mahad celinaynaa beelweynta hawiye ee casho sharafta noo sameeyey iyo dhaqanka ay doorteen waxaa weeye dadku hadduusan dhaqan lahayn wax badan baa ka halaaba wax walbana dhaqanka haga xag markii diinta laga soo tago dhaqanka ayaa waxaga markaan ku magaciisa sheego ninkii mudulkaan dhisana waxaan rabaa hadduu ilaahayga Soomaali inaan u sheego nimanka halkaa fadhiyaahu siyaasiyiin ma siyaasadda dhexgeli maayaan waqti iyo xoolaa ku soo baxay inaysan siyaasad dhexgelin ay dhaqan yihiin
dhowr jeer waxaa laga dhawaajiyey dhaqankii Soomaaliyeed waxaa ku dheelay kuwa siyaasad dhexgalay waxaan rabaa Soomaaliya inuu caddeeyo in Soomaaliya uu caddeeyo nimanka gadaasheeda fadhiya aniga iyo raggii soo dhisaba idin ballan qaadaynaa inay siyaasad gelin أولاً waxaan u mahad celinaynaa Rabbi subhanahu wa ta'ala nagu kulmiyay runtii xafladatan aynu ku caleema saarayno caawa dhaqankeenii Soomaaliyeed oo runtii ragga akhyaarta ah ee gadaasheeda ka muuqda labeentii reer Cape Town ah oo wada naqaano wajiyadooda raggaas soo qaban qaabiyay arintan maaragtay muddo badan u geed seexday oo u fariistay meelo badan aad baan ugu mahad celinaynaa marka ugu horeysa waxaan rabaa marka inaan laba kelmad kaliya ku soo koobo oo ah waddankan intaan joognay waqti badan baa naga dhumay runtii waxaa la rabay shaqaad maanta aan hayno inaan 10 sano la soo dhaafay aan bilownay cidoo 10 jirtay maanta aan maxay qabatay iyo maxaan naga dhiman inaan dhahno runtii aad bay ugu habboon laakiin ingiriisku waxay dhahaan naadku tuulay waxa tuulay meera ma jiraan mar waqti waa dhimaya dadku nolol waa u baahan yihiin iyo dhaqan iyo midnimo marka maanta markay noo bilaabato waxaa la rabaa insha allahu tacaala magaca meeshaas ku qoran sida la sheegay juhdi baa galay waqti baa galay dhaqaalaa galay waxal baa galay maanta heerkaan soo gaartay marka anigu shakhsiyan anigoo kamid ah dadkii wax ka soo waday waxaan rabaa insha allahu tacaala ilaahay haddii cimrigii uu ku simo inaan soo garab istaago midnimada Soomaaliyeed waxaa ma heli waa fagaaraha waa keenay cawada Soomaaliyeed in waa fadhiin culummadii dhammaan way fadhidaan saddexdii masaajidaa fadhida ganacsatada fadhida ugaasiyada fadhiya dhalinyarada fadhida oo aan ka mid ahay waxa waaye waxay la tahay wax dhiman qof dhiman ma badna عربنا إن شاء الله تعالى صوماليين عاول قبل وعربنا هوية الصوب مدى أيوه كان سميستي صوماليين وعونك عن صلينا ونكور يجيو عاول حفلتها على مساج وحاولي إن أيضا كور يجينو وأن أيضا كور يجينو وقواس gunaanadkiina gudoomiye daahir maxamed cali ayaa mahad celin kadib waxa uu khudbad halka uu hadafkoodu yahay tilmaamaysa ku yiri sida tan عمرو هذا يبدي المناورة يعني تبع الوطن وصل القاضي يمكن أن أقوم بها أنت عن ذلك الكيمياء عن دراسة وأصله عن وصل اليوم أريد أن أعرف كيف الكيمياء إلى الإنجليز اسم الإنجليز ورسل الدولار وأنا أمر ذلك ورسل الدولار عن قاصد بشر وقرنا بارك الله ومحمد ورسول عامة ولله يا مسلم ورسول تعالى لكن عليها ليش منها وليد عطيه المناسبة صوت سكين المناسبة صوالي هذه الكلمة وهذه 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 عليه معنا عندي وهذه وهذه عن كثير يا رب إن نشأ أيام فيما نتوقع على وجه البشر يا سوري هو المكان وعلى جيل أن أروح وشرك عليكم لا الصوماليين سوري أستمع وراعة وسرير وحقوق البشر إن شاء الله تعالى. Maria Indo, Goobjoog TV, Cape Town, Koonfur Afrika.